waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa abaalmarino kala duwan ardayda dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka. barnaamijka aan ugu talagalnay inaan ku guddoonsiino ardayda oo la yiraahdo Arday Cup oo runtii ah barnaamij soo socday bilihii ugu dambeeyay kana mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ay shirkadda Telesom ku soo celiso macaamiisheeda. waxaan maanta halkan ku abaalmarinaynaa 7 arday oo dhigta jaamacadaha dalka oo ku guuleystay barnaamijka Arday Cup. barnaamijka Arday Cup ardayda jaamacaduhu waxay helayaan scholarship hal semester ah ama in shirkadda Telesom ay jaamacadda hal semester lacagteeda ka bixiso. ardaygu faculty-ga uu doonayo ha dhigtay iyo ardayda dugsiyada sare 3 kamid oo iyagana laga bixinayo hal teeram dugsiga sare lacagtiisa. ardayga waxaa shardi ah inuu ardaygaasi kamid yahay macaamiisha Telesom ee isticmaasha internetka kuna isticmaasha mobile-kooda bundleska ama xirmooyinka kala duwan ee shirkadda Telesom 4G-ga iyo 3G-ga. kadibna ardaygu isaga ayaa dalab u soo diraya adeega oo numberka 31 ama 111 ayuu u soo diraya jaamacad haddii uu dhigto jaamacadda, haddii uu dugsi sare dhigtana sare ayuu u soo diraya. kadib si nasiib ah ayuu systemku u kala saaraya, dabeedna 7 arday ee ugu horeeya ee uu systemku soo saaray ayaa jaamacadaha la abaalmarinaya, dugsiyada sarena 3 arday ugu horeeya uu systemku soo saaro. maanta waxaan halkan ku abaalmarinaa arday ka kala socota 5 jaamacadood oo ay kamid yihiin jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Amuud, jaamacadda Burco iyo jaamacadda Golis iyo jaamacadda Shifa ama Shifo University. iyo sidoo kale 3 arday oo dugsiyada sare ah oo ka kala socda dugsiyada sare, dugsiga sare ee Sheekh Cali Ibrahim Hargeysa, dugsiga sare ee Buursade oo Berbera ah iyo dugsiga sare ee Qarnul Afriqiya oo ah Burco. runtii maana ardayda ku guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo. ma noqonayo barnaamijku markii ugu dambeysay uu inoo sii socon doona insha Allah taala. shirkadda Telesom waxay kamid tahay shirkadaha ka ganacsada wadanka ganacsi badan bay ka hirgelisay. runtii waxaan doonayaa mashruucan waa bilow sida looga soo qaybgalo markaan aragnay iyo sida loo isticmaalayo mustaqbalka waxaan noo dhigay aad u ballaaran inuu ka ballaaranayo sidan dadka la maris ku ballaaran doona algudu way ka sii ballaaran doonaan. way waxaan doonaynaa dadka inaan korino oo inuu umadeenna noqono inaan wax ku celino. waxaan ku celinayno waxyaabo badan baa koosgareeno kamid ah inaynu umadeena tusno tiknoolajiyadu inay muhiim tahay maadaama dheeta loo socdo inaynu la jaan qaadno isbedelka dunida ka socda ee loo socdo xagga dheetada. way adduunkii tiknoolajiga ku socda wax walba tiknoolajiga bari dhow waxa soo bixi doonta in mobile-ka lagu isticmaalo qofka mobile-ka uu sito inuu adeeg wax la wixii tiknoolaji la qaaday oo dhan ama tiknoolaji oo hayo dhan inuu runtii de mobile-ka loogu xiro qofka si aynu taw kasbano. inaguna waxaynu u dhiirigelinaa ardayda wacaynka wax kale oo ka muhiima maadaama ardaydeena dadka waxbaranaya aqoon-yahanadii yihiin dadkan jaamacadaha iyo dadkan iskuuladu waa dadkii aynu mustaqbalka lahayn inaynu ka qayb qaadano inaynu ka mid noqono dadka dunida la jaan qaadaya ee tiknoolajiyada qaybtooda ka qaadanaya oo aynu tusno inaynu nahay wadan tiknoolajiga adduunka meel fiican ka maraya. sanadkii dhawaad waad ogeydeen waxaynu ku guuleysanay dunida inaynu noqono shirkadda ugu tiknoolajiga fiican la Telesom iyo qaaradda Afrika. runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay ka jaamacadda Shifa University inaanu mar labaad ku guuleysanay barnaamijkii Arday Cup. runtii waxa weeyaan waa barnaamij bulshada in ay wax ku celiso shirkaddu ay qaadatay runtiina ay ka faa'iideen ardaydii iyo jaamacadihii iyo iskuuladii hawsha galay. aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqaynaa shirkadda Telesom oo aan u aragno inay tahay leadingka Somaliland ee telecommunication-ka iyo taageerista bulshada reer Somaliland. waa marka koobaad ee mahadnaq shirkadda Telesom aan u mahadnaqayno. shirkadda Telesom kulli waa partner jaamacadda Hargeysa la shaqeeya. kaliya ta organizations-ka la shaqeysa ee jaamacaddu kamid tahay kuma soo celiso wax, laakiin waxa halkan ka cad in dadkii customer-ka ahaana ay ku soo celinayso gaar ahaan dadkii ugu baahida badnaa oo ardayda ka mid yihiin. marka waan ku hambaleynayaa shirkadda taas waxaan rajeynayaa inay sii wadi doonto oo ardayda halka laga sii wadi doono kaabidooda. waxaan ku xigsiinayaa hambalyo iyo tahniyad aan u dirayo 7 arday ee ka soo baxay bay ilaa dhowrka kun ee customer ka soo baxay. waxaan hambalyo aad u dirayaa jaamacadda Hargeysa iyo jaamacadaha kaleba. waxaanu aad u soo dhaweynaynaa barnaamijkan community-ga dib ugu celinaysiin daatada abaalmarinta ardayda jaamacad Golisaan. marka shirkadda Telesom maaha markii koowaad ee ardayda iyada amba jaamacadda dib ugu soo celiso. waa shirkad markasta naag taagan hadday noqoto internet
hadday tahay adeegaan isticmaalno dhambaal SMS oo ardayda iyada aanu kula xidhiidhno iyo shaqaalaweynahaba hadday noqoto maxaan ku dhahaa abaalmar waxyaabo kala duwan bay noo qabataa maaha markaa markii koowaad ee shirkadda Telesom ay nagu soo celiso mahad ka bacdi run ahaantii anigu 100% maan hubin markii aan dalabka fulinayay laakiinse 100% waan ku rajaweynaa rajadeedii iyo nasiibkaygii Ilaahay qaaday iyo dadaalkii Telesom sameysay isku geyntoodii waxaan helay maxay haytay abaalmarin aad igu qiimo badan aad baad u mahadsantiin dareenkayguna aad baan ugu faraxsanahay runtii ardayda dhigayga ah ee jaamacadaha kale ka socda ee gula guuleystay iyagana waan u hambaleynayaa waxaan ka mid ahay ardayda ku guuleystay barnaamijka Arday Cup waxaan u mahad celinayaa dhammaan hawlwadeenada shirkadda Telesom sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleystay barnaamijkan horta waxaan ahay arday jaamacadda Hargeysa waxaan markii hore barnaamijkan aan ka qayb qaadanaya ma aan isticmaalay diilada intan laakiin la igu abaal marin doono maan filayn laakiinse maanta waxay noqotay in tii aan barnaamijkii aan anigu isticmaalayay danahayga ku fushanayay in anigii la igu abaal mariyo waan u mahadnaqayaa shirkadda Telesom maamulkeeda iyo maxay shaqaalaheedaba waxaan ka mid ahaa ardaydii ku guuleystay barnaamijka Arday Cup mahadda Ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa shirkadda Telesom oo runtii iyadu barnaamijkan fulinaysay suuragalna dee may noqoteen haddii aan shirkaddu barnaamijkan soo saarin in anagu ka faa'iideyso marka barnaamijka aad iyo aad baan ugu faraxsanay inaan noqdo dadkii ku guuleystay shirkaddana aad iyo aad baan u mahad celinaa waana mahadsantihiin